kusoo dhawaada daawadayaal channelkeena Carab 24 qodob xiiso leh ayaan idiin soo gudbin doonaa bal marka hore subscribe dheh share oo la wadaag asxaabta ra'yigaagana hoos inagula wadaag qaybta commentiga mahadsanidin Wayne The Rock Johnson sidoo jilaagan ku noqday atooraha lacagta ugu badan ka sameeya aflaanta. Wayne The Rock Johnson ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay jilaaga ugu lacagta badan ee sanadka, waana sanadkii labaad oo xiriir ah oo sidaas uu noqdo. Atoorahan oo horey u ciyaari jiray musaaricada ayaa lagu soo waramay in uu kasbaday lacag dhan 87.5 milyan oo u dhiganta 67 milyan oo euro intii u dhaxaysay kowdii bishii Juun ee sanadkii 2019 ilaa iyo kowdii bishii Juun ee 2020 lacagta uu sanadkan helay waxaa kamid ah 23.5 milyan oo dollar oo uu ku qaatay filimka oo u jiray shirkadda Netflix ee lagu magacaabo Red Notice. Wuxuu sidoo kale lacag intaas ka dheeri ah ka sameeyay mashruuciisa jimicsiga ee la yiraahdo Project Rock. Tobanka atoor ee ugu sareeya liiska jilayaasha lacagta ugu badan sameeya marka la isku daro waxa ay heleen sanadka waa 545.5 milyan oo dollar, in ka badan 4 meelood hal meel oo kamid ah lacagtaas waxaa bixisay shirkadda Netflix, sida uu shaaciyay wargeyska dhaqaalaha qiimeeya ee lagu magacaabo Forbes. Ryan Reynolds oo ah atooraha kale ee ku jira filimka Johnson uu sameeyay ee Red Notice ayaa noqday jilaaga labaad ee sanadkan sameeyay lacagta ugu badan. Wuxuu helay 71.5 milyan oo dollar. Mashruucyada lacageed ee uu helay waxaa kamid ah 20 milyan oo dollar oo uu ku qaatay filimka Red Notice iyo 20 milyan oo uu ku qaatay filim kale ee isla Netflix ay sameysay ee la yiraahdo Six Underground. Atooraha saddexaad ee liiska ku jira waa Mark Wahlberg oo sanad gudihiisa ku shaqaystay 58 milyan, halka Ben Affleck uu soo galay kaalinta afraad. Vin Diesel oo isaguna soo galay kaalinta shanaad. Jilaaga u dhashay Hindiya Akshay Kumar ayaa noqday atooraha kaliya ee ka tirsan Bollywoodka ee soo galay liiska 10 ka hore. Wuxuu Akshay ku jiraa kaalinta lixaad ee liiska isagoo hal sano gudaheeda ku kasbaday lacag dhan 48.5 milyan sida uu sheegay Forbes. Sidoo kale liiska waxaa ku jiray soo saaraha filimka Hamilton ninka la yiraahdo Lin-Manuel Miranda iyo atoorayaasha kale ah Will Smith iyo Adam Sandler iyo jilaaga ruucadaaga ah ee loo yaqaan Jackie Chan. Jilayaasha dumarka ee lacagta ugu badan qaata ayaan wali lagu dhawaaqin muddada sanadka ah gudaheeda wixii ay heleen. Liiska kale oo kan ka madax banaan ayay ka soo muuqan doonaan sida la filayo. Sanadkii la soo dhaafay atriishada lagu magacaabo Scarlett Johansson ayaa hogaaminaysay liiskaas kadib markii ay heshay 56 milyan oo dollar, waxayna lacagta ka hooseysay tii uu helay atoorihii kaalinta toddobaad ugu jiray liiska ragga. qodobkaasi xiisaha badan ayaan daawadayaal idinla wadaagaynay. hadda sidii ballantu yahay subscribe dhaha share dhaha oo la wadaaga asxaabta mahadsanidin.